يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إمك وحن بالله بينا حفظه القرآن الكريم. هنكسو هذا الله ديار قروقي حفظ القرآن الكريم. وحانا شيقناي qof kasta oo muslima qof yar iyo qof weynba inuu u baahan yahay kitaabka Ilaahay inuu xifdo. Soomaalidu waa dad quraanka jecel oo xifdiya, laakiin yar ka xifdisiyaan quraanka. dadkii waaweynaa kii quraanka wax ka yaqaanayna ma siyaadsado, kii weynaana waxaad moodaa inuu ilmaha yar u dirayo oo ku dadaal, laakiin nafteena uga baahi badan kitaabka Ilaahay inaan baranno. ilmaha yar ilmihi yaraana qudweynu u noqonayna. waalidku markuu quraanka xifdiyayo ilmihiisi yaraa qudwo u noqonaya, mutaabacana uu ku samayn karaa, uu sixi karaa, uu habeen karaa. wax badan oo maanta uusan waxba ka ogeyn ayuu ogaanaya markuu kitaabka Ilaahay wax ka barto. ilmihiisana uu kula dadaalaya. waxaynu ka taxadaraynaa laba cudur inay inagu dhacaan. quraankii baan bilaabaynaa. labada cudur waxaa weeye waan weyna oo carabkaygii baa adkaaday. been weeye arrinkaa waa arrin lasoo taabtay, waa been. nabigeena sala allahu calayhi wasalam qur'aan kariimka waxaa lagu soo dejiyey isagoo 40 sano 40 jira. haddii saxaabadan waxay soo islaamanayay warrag waaweyna oo hooyo waaweyna, dad waaweyna, qof walba marbu ilaahay xilligu hidaayada siiyey buu soo islaamay. xilligaan buu xifdiga bilaabay. sheekadaa carabkiiba ay adkaaday ma jiro. carab adkaada ma leh. carabku raashinka muu ka adkaado oo kari waayo inuu calaliyo, raashinkii buu cunayaa, hadalkii kale uu karayaa. kalaamu rabbi alcaalamiin keligii baa ku cuslaaday, wax lagaa yeelaya ma. walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir. qur'aan kariimka ilaahay baa sakhiray, bini aadamka u sakhiray. kalaamu rabbi alcaalamiin waa carabkeennaba kama soo baxeen hadduusan ilaahay inoo sakhirin. hadalka ilaahay maba inaan awoodneyn inaynu ku hadalno. marka qodobkaas waa qodob dad badan ay ku cudur daartaan. qodobka labaad ee dad badan ku cudur daartaan waxaa weeye daakiradayda ama xifdigaygu ma wanaagsana. been weeye taas. daakiradaada haddaad soo jeediso ood khalalka iyo shubuhaadka iyo shahawaadka iyo shakiga aad ka saarto ood ilaahay u soo jeediso kalaamkiisa, si fiican ayaad u baran. welibana wuu ku cilaajin qur'aanku. markaad aayad xifdidaba daakiradaada iyo arrimahaaga oo dhan iyo wax kastoo ku mashquulinayay ayuu ilaahay. waa shifaaun lima fi suduur, shifaaun lilabdaan, shifaaun lilarwaax. qur'aanku waa dawo wax kasta oo arrimaha aad ka cabanaysa ah uu kaa daweynaya. marka cudurdaarada beenta ama ulaha boocda ee shaydaanku inoo taagayo waan mashquulsanahay baa ka mid a. kalaamu rabbi alcaalamiin haddaad ka mashquulsho maxaad ku mashquuli? kalaamu rabbi alcaalamiin waqti waa inaan siino oo aan baranno. waxaa cudurdaarada markaan xaggan iska dhigno, nasaaixdii horena aan wadano, quraankii baan bilaabaya. kayfa abda-u, seenu bilaabe? kow waa inaan xusho sheekh aan quraanka ku dul akhriyo. ma aha inaan ciddii iga hor timaada aan quraan ku dul akhriyo. midaan isagiiba quraan garanayn haddaad ku dul bilowdo laba qaawan isma qaado. qof quraankii garanaya kalaamu rabbi alcaalamiin xulo adugu doono. waa iga naseexa wey ilaahay dartii. soomaaliduna way ka mahmaado, waxay yidhaahdeen qur'aanka waxaa lagu bartaa, waxaa ka tilmaamahay sheegan waxaa kamid a arday qaylo dheer. waxay ka bilaabeen macallin qaari ah, macallin qur'aanka yaqaan, arday qaylo dheer, loox quuda, qalin qaaxaweyn, qalin ballaaran, hooyo qalqaalo badan oo ardayga diyaarisa, iyo aabba quuri og lexjeclada. waxyaala noocaasi soomaalidu runtii taxeen. way Soomaalidu dad quraan baahan. macallin qaari aan imika uga jeeda. macallin waa inaad xulato, haddii kale dhexda ayaad farta ka qaniini.
maanta dadka la sixila yahay waa dadkii qur'aanka marka hore ku qaybay laxniga iyo qur'aan aan xuruuftiisa hagaagsanayn iyo qur'aan aan laga baaraan degin oo aan laga fikirin ardaygu markuu ku yimaado fikir badan buu u baahan yahay in laga fikiro oo halku ku haboon yahay looga bilaabo marka macallinkii garan lahaa waa inaad xulato macallinka waxaad ku xulan qur'aanka aqoontiisa ku camal falka kitaabka ilaahay adoon rabbaani ah qof rabbaani ah akhlaaq leh qof ilaahay ka baqaya qof macallinkaaga intaadan qur'aanka ka baranin waxaad ka baran wax badan oo kale oo noloshaada hagaajinaya ayaad ka baranaysa marka macallinka qur'aankana waa inuu yaqaano sifaad badanna waa imaamkaagi waa sheekhaagi waa sanadkaagi waa inaad wax badan aad ku xulanayso qur'aankii baad bilowday aayad xifdi aayadda ku celi maalan ilaa 20 jeer macallin qur'aanka ii dhigay wuxuu yidhi yani waxaan ku celin jiray aayaddiiba 100 jeer markiiba waan xifdiyey maaha ku celceli markastood ku celceliso intaadan aayadda akhriskeeda bilaabin xifdigeeda bilaabin isha ka 3 xubnood waa inaad adeegsato waa inaad carabka qur'aanka ka akhriyayso waa inaad isha ka eegayso waa inaad dhegtana iska maqlayso haddaad hoos u akhrido ama markiiba aad bilowdo inaad kitaabka iska qariso ood laabto adoon xifdinba ina aladiina aamanuu waxaas maaha horta adeegso xawaastan 3 carabkaagii iyo indhahaagii iyo adigoo ismaqlayo kor u akhriyo ismaqashiinaya intaa si fiican u akhri intaadan akhriska bilaabin waxbaad ka hormarin inaad sheekh qaari ah xulato quraada waaweyn ka mid sida Khaliil Xusari Sidiiq al-Mushaawi nimanka masaarida khayr badan Allah siiye quraanka way itqaaniyaan maaha sheekh tarawih tujinayo oo sida hebel iyo iska iriye maya markan waa macallinkii quraanku baray marka nin qof laga duubay si rasmi ah looga duubay idaacadaha quraanku ay ka duubeen sifar rasmi ah ayaad dhageysanaysaa waad eeganaysaa intii muqarrarka ku ahayd haday 3 aayadood ahayd iyo haday 4 aayadood ahayd waad ku celcel hore waxaan soo sheegnay tafsiirkii inuu soo si bilaabmay waad ku celcelinaysaa marka intaadan horta ayaad adeegsanaysaa si tartiibaad u fiirsanaysaa kadib qiraa'adii baad bilaabaysaa aayadda waxaa la rabaa inaad ku celiso ugu yaraan 20 jeer tarkiis aayadda ku celi aniga idin sheegay macallimiinta kamid wuxuu yiri aayaddii markaan qaybay waxaan ku celin jiray 100 jeer shayga aad ku celceliso at-tikraar wuxuu keenaa inuu sugmo shaygu bal maalan waxaad gurigiina ama guriga aad joogto eeg saad u xifsanta adoo indhaha isku hayaad jikada geli kartaa hurdada geli kartaa waa maxay waa aragtidan badan ee muddada dheer ahayd marka waxaa la rabaa in aragtidii ay badato maadaama aayadan isku cusubtiin aragtidii inay badato ilaa 20 jeer ugu yaraan ama ka badiso ayaa la rabaa horta indhaha adoo ku hay inaad akhrido markaad istiraado waad xifday markaad dusha ka akhri celceli markaad bislayso aayaddii labaad bilow aayadda labaad intii in la eg mari dhegeysiga badi eegninka badi maqalka sheekhu soo akhriyo codkaaga dhismay sheekhu wuxuu ka daweynaya kayfiyatu tilaawa qaabka quraanka u akhriyayso ka dhisaya quraanku wuxuu leeyahay nidaam qawaacid buu leeyahay loo akhriyo marka qawaacidaas haday codkii sidii loo soo tuurayay kalsoonidii loo akhriyay codkii noolaa iyo tartiibtii bidaayada iyo qaabka loo istaagay meelaha lagu istaagay waxaas oo dhan buu sheekhu ka dhisaya dadka sheekhi markaad dhageysatay sidii tii aayaddii koobaad ugu celceli markaad aayadan 20 jeer adoo eegaya ugu yaraan aad akhrido kadib xifdigeedii bilow labadii aayadood deedna isku xidh muddo aan yarayn marka labada aayadood isku celceli ha isqabsadeen markaad labada aayadood bislayso tii saddexaad u gudub iyadana sida u wad way markaad muhiim waxa kolba intaad xifdiday quraanka inaad isku soo xidho suuradda haddaadan isku soo xidhin xifdigaagu wuxuu noqonayaa mid kala go'an quraanka intaad soo xifday haddana waxaa la rabaa inaad qiyaamka salaada ku tukato salaada sunnayaasha fi al-layl wa an-nahar sunnaha aad tukanayso ku tuko cashirkii habeenkii ku tuko habeenkii waliba habeenkii usii macayo waad ismaqashiinaysaa quraankii baad maqlaysaa inna naashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an
وأقوم قيلا بإلهي هبينك مركات قرآن كتو جزكي أما حزبي أما بقي أدمان تكبحيسي قول إيه قبل نموي waxaan intaan raacinayaa muraajacadaadu waqtiga firaaqa waqtul firaaq ee jadwal baad horay u soo samaysatay laakiin waqti waxaa jira soo baxaya مثلا saacatul intidaar waad mataarkaad joogtaa ama gaari baad meel ka sugaysaa ama xafiis baad waxba waqti baa soo baxay kitaabkaaga quraanka waa inaad sidato shamdada waa inuu kugu jiro xilliga yara kuu soo baxa waa inaad quraankii hore maaha cashirka quraankii hore muhiim ah raasamaalka ee soo dhaaftay inaad mar walba arabka ku badiso wa aakhiru kalima taladu way badan tahay nasiixada waqtigan ilaalinayna addu'a inaad ducada badiso oo kalaam rabbil alamin man hadaad u go'day ilaahay وتبتل إليه تبتيلا إلهي أذوق وذي كلام كيسي وما أركتي كلقنكي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة نفط هذه عبادتي يا خير كي كل هذه دعاء ذو مستجاب إن النفط هذا أنا أدعيسه عدة وحكو برايسة يا عدة وحوض برانيسان يا والدك يا أمضى هذا يا دتك هذا يا دجان كذا أنت بقينا دعاء بدس الدعاء إله وحكو بحياة وحسن كوب بحنين دذلك دذلك meelayna ku gaarsiinaynin ay ducadu ku gaarsiin waxa ku gabagabeynaya qofka kitaabka ilaahay baranaya inuu ogaado inuu ummadda qudwa u yahay haday ficilkiisa tahay iyo hadii horsocodkiisa tahay iyo hadii ma aragtay hadal dhaqankiisa tahay inuu aad iyo aad xil badan isu saaro ma bacda al-hifdhi quraankii baan xifdiyay wa inaan ziyaada sameeyo ziyaada مثلا القرآن كبا حفظي كبا يسقناضي الحمد لله رب العالمين وإن إجازتي باللوض إجازتي بقى دمعتي وإن قراءاتك باللام حدادا سيدا سمين وفوق كل ذي علم عليم هذا المرول بأرض ولا شاء أهاني النبي صلى الله عليه وسلم قدوة إنوية أسوة حسن إنوية إلهي بس سيدا أسوة حسن رسول كان القرآن وقل ربي زدني علما قرآنك إلهي وحلاه وحتر هذا إله زيادة علمك زيادة لشيء وقرآنك علمك له زيادة آيات جدا بيسوي حيسو دكتي تضبع الشكور جيري صلى الله عليه وسلم مركو حال ربا قرآنك وانولا الشيء نور دنبا كو قادنينا قفك قرآنك حفظي وإنو سنم انتو كتابك بالس كدب وران وان حفظيه كو وإنو زيادة باللابو وإنو إنفاق قرآنك وإنو بحيو وددك برو سيو حديث النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم سك استعداد مشغول تهاي وكتابك إلهي برات حلبة كل شرة إن حلقات سمايسو أدوجو أسي جد بيسو كتابك إلهي وقدام بين حافظ القرآن ككريم كوفك كتابك إلهي برتي حلك اللي شرة وحوي الأمة إنه كفكر أمة النمو سوى وإنه فكر وإنه نفتيسة قبل لابا نفتيسة إصلاحيو qoyskiisa ku dadaalo deegaankiisa ku dadaalo waa inuu ogaado inuu yahay qofka ilaahay ugu dhow qofka xaafid quraanka oo qof yaani meel sara maray kalaam rabbil alamin ilaahay ahlkiisi way khaasadii ilaahay baad kamid tahay insha Allah ta'ala marka waxa la rabaa inaadan noqonin qof uun masaajidka iyo gurigiisa iyo intanuune laakiin xil ummadeed inuu ummadda xilkeeda ummadda nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam xilkeeda inaad wax iska saarto oo ka fikirto sideeba ka mu'minka ana loo hormariyaa oo mu'miniintu ay hore ugu socdaan adoo degaankaaga iyo الأول فالأول كبلابية كقالك أنا توحيدك إيه كتابك إلهي لو قارسية إلهي وحمد سنة إنه عيبتنا أسطره ونقول لنا إنه سخره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.